kahor intaynan u galin wararka kale ee caalamka aanu ku bilowno Soomaaliya sida shalay ama xalay idaacadaheeni aad ku maqasheen guddoonka baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in is-afgarad laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay xubnaha baarlamaanka ee ku aadanaa mooshinka kaga dhanka ah xukuumadda ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska guddoonka baarlamaanka ayaa lagu sheegay in kulanka ku saabsan mooshinka la qaban doono talaadada soo socoto gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa hakiyay kulamadii baarlamaanka isbuuc ka hor kadib markii xubnaha baarlamaanka oo taageersan ra'iisul wasaaraha ay jeexjeexeen is-hortaageenna in la qabto kulanka looga doodayo mooshinka hase yeeshee xildhibaanada diidan mooshinka ayaa weli ku adkaysanaya in mooshinkaasi uu yahay mid sharci darro ah laakiin ay ogol yihiin hadda in laga doodo xildhibaan cabdi barre oo ka mid ah xildhibaanada mooshinkaasi diidan ayaa maxamuud cali maxamed qadka telefoonka ugu warramay arrintaa guddoomiyaha aad baan usoo dhaweynaa tanaasulkaas iyo arrimahaas oo dhan annagaa samaynay sababtaan u samaynayna ma ahayn inaanu ka tanaasulnay mooshinkii sharci darrada ahaa inaanu ka tanaasulnay oo gabi ahaan sida ay rabaan qolyaha kaloo saaxiibada naga soo horjeeda aanu u samayno taas kuma heshiin wax allaale iyo wixii kale oo ku furmi karo oo wadahadal kala ah taas aanu samaynay laakiin annagu kama ana tanaasulin mooshinkaan inuu yahay mooshin sharci darro ah oo aan waafaqsanayn nidaamka dastuuriga midna aan waafaqsanayn sideedaba annagu wadahadal baanu markasta ogolayn inaan wada hadalno inaanu maaragtay bal waxaa jira aanu guddoonka iyo madaxweynaha aanu ka wada hadalno intaa markii haddii nala dhegaysan waayey oo dheg jilaqna loo siin waayey arrintii halkaa marayso annagina aanu 3 jeer hor taagnay baa dadku waxay kaliftay in madaxweynihii uu ka yimaado dalab ah inuu la kulmo xildhibaanada mooshinka ka soo horjeeday marka taasaa kaliftay in dalac yimaado oo la wada hadlo taasaa keentay marka haddii talaadada la yiraahdo mooshinkii cod baa loo qaaday ma ballan qaadaysaa inaynan ku buuqi doonin oona is-hortaagi doonin warta xaajadu sida maalinba meel bay maraysaa annagu baalkaan mooshinba uma aragnay annagu mooshin uma aragno waa mooshin sharci darre ku yimid maxaa yeelay inuu sharci darre yahay ka yimid maxamuud adaanba kuu sheegaya xukuumad aan lala xisaabtamin oo waxqabadkeedii aan la weydiinin oo moosinku meeshu ka yimid og yahay horta kaasuu sharci darre ku yahay cid kastana waa u sheegnay caalamkana waa u sheegnay shacabka soomaalina waa u sheegnay sidaa darteed mooshinkii maadaama annagu 3 jeer hore wixii ay la cararayeen masaajinay oo buuqa lagu tilmaamo ama wax kasta lagu tilmaamay markaan inaanu weji kale u bedelno taasaanu ku gaar marka wejigaasi cusub muxuu noqonayaa wejiga cusub wuxuu noqonayaa bal nimankaan saaxiibadayoo la kari waayey baarka ay la ordahayaan oo guryaha ay kusoo samaysteen inaanu bal meesha brimariga markaan idhaahno war waxaanu waa khalad sharcina ma ahan nidaamna ma ahan arrintaa waxaan u samaynay dee markay tanaasuli waayeen oo madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed tanaasuli waayey oo beeshii caalamku la hadashay taag iyo fadhi si kasta ula hadashay asagina ku adkaystay maya baarlamaanka hala geeyo ayagiina la soo qarqarhayaan annagu maadaama aanu nahay ilaalintii sharcigan oo waxaanu inay khalad yihiin caalamka tusnay haddana waxaanu rabnaa inaanu saaxiibaday iyo shacabka Soomaaliyeed aanu tusno balbaalkan ay la ordahayaan oo jeebka ay ku jirtaan oo aan baarlamaan ka soo bixin oo guryaha lagu soo abaabulay inaan nidhaahno waa khaldan yahay sharci maahan nidaam maahan haddii shalay nala dhegeysan waaye maanta maadaama naloo soo istaagay oo la yidhi muxuu ahaa xal keena dee xalka markaan aan keenaa waxaa weeye inaan maanta nidhaahno bari nala yidhaahdo sharci darro ku socda geedkaanu waa khalad ma soconayo marka waxaad ogoshihiin in si ka gedisan sidii hore talaadada sida lagu balansan yahay hadda marka la keeno in aad ogolaataan in codkii loo qaado mooshinka horta intaan la gaarin waa inaan nidhahnaa saaxiibaday aan ka dhaadhicinaa saaxiibayaal geedkaanu sharci kuma imaan waa mooshin siyaasadeed waa bam qarxaya oo baarlamaanka lagu soo dhex tuuray inaanu horta taabal tusno aanu u caqli celino bal talaanu siinaa marka hore rabnaa haddii talooyinkiina la diido maxaad samaynaysaan talooyinkayga hadday diidaan bal codkay la ordahayaan baanu ku tijaabina idinka rabbina inaanu maaragtay kaga guuraysanayno oo daaqada aan ka tuuray inaan rajayno haddii rabbina meel walba oo laga keeno mooshinkan sida adiga aad tilmaamayso marba haddii uu yahay mooshin baarlamaankii la dhex keenay inaad is-hortaagtaan ood maalmo walba buuqdaan soo dhibaato uma keenayso waxqabadkii iyo horsocodkii baarlamaanka adeer ma keenaysa waxaa keenaya ciddii mas-uul ka ahayd oo waxaan soo abaabushay baa mas-uuliyaddeeda qaadanaysa ayagaa qaadanaya maxaa yeelay mooshin aan baarlamaan ka imaan sharcina ma ahan nidaamna ma ahan moshinku hortasiisa waa sharci wuxuu ku noqonayaa inuu baarlamaanka ka yimaado oo muxuu ahaa haddii xukuumaddii loo yeeray oo xukuumaddii hawsheedii dartay oo ra-iisul wasaare xukuumad shaqadiisii gabay ama wasiirkii shaqadiisii gabay ama nin kastoo laga xisaabtamo taliyo ciidamada uu shaqadiisii gabay taasaa mooshin laga keeni karaa markaa baarlamaanka dhexmaan kartaa laakiin iyadoo intaaba la samayn oo aan ra-iisul wasaare loo yeerin oo aan xukuumad loo yeerin adigaan maxamuudan ku weydiinaya sharcigeen aduu ku qaadilaya adoon hadda xildhibaanayn baa fahmaya khaladka meeshu ku jiro marka annagu waxaan leenahay war bahalkaa nala ordaayo oo siyaasadaysan kula yimid
lumiya haddii ay dhacdo in cod loo qaado mooshinka oo nilaga tira bato oo marka ayada ra-iisul wasaaraha kalsoonidii sidaa uu ku lumiyo ma ogolaanaysaan go-aanka baarlamaanka markaas waqtigeeda hala gaaro salaada waqtigeeda leedahay horta waqtigeeda hala gaaro waxa uu ahaa xildhibaan cabdi barre oo u waramayay maxamuud cali maxamed haddaba dhegeystayaal ayaa ra'yigooda Facebook